السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo talaada arbaca ay soo galayso taariikhdu waa 3 bisha Maarso sanadka 2026 haddaba caawo barnaamijka waxaynu gabi ahaantii ku qaadan doonaa dagaalka culus ee ka socda bariga dhexe halka la kala marayo maxaa soo kordhay saacadihii aynu kala maqnayn haddaba wararka xiisaha leh aan caawa idin hayo waxaa ka mid ah satalaadyo loo malaynayo inay yihiin Ruush iyo Chinese oo soo qaaday sawirro naxdin ku abuuray dadka Yahuudda ah iyo Mareykanka khasaaraha ay geysteen gantaalaha iyo droniska Iran markii Israa'iil lagu duqeeyay xaafado dhan baa Gaza u ekaaday iyadoo dagaalka uusan ba toddobaad gaarin haddaba maxaa la isweydiinayaa haddii dagaalkan bil socdo Israa'iil maxaa ka haray haddaba videoga la yaab kale ee telefishinka Al Jazeera uu sii daayaan idin haya waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa warar cusub oo ku saabsan weerar kala duwan oo lagu qaaday gudaha Israa'iil sidoo kale xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa la sheegay in la duqeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa iyaguna caawa shirkoodii jaraa'id wixii ay maanta nagta ka saareen soo bandhigay wararkii ugu dambeeyay ee ciidankaasi afayeenkooda uu saxaafadda la wadaagayna waan idiin soo gudbin doonaa waxa soo kale aan idiin hayaa Trump oo aflabadii qayliyay dowladihii Yurub way kaalmeyn waayeen ayuu ku hayaa yuu ku dhagan yahay haddaba sheeko la yaab leh iyo arrinkaadi kaga hayaa qodobadaas waan idin hayaa warar cusub oo soo kordhay oo ku saabsan dagaalo culus oo maqribkan dhex maray ciidamada Israa'iil iyo ciidanka Xisbullah oo la sheegay Xisbullah in taangiyo cusub haddana ay gubeen barnaamijkan ku faaqidi doona qodobadaas aynu barnaamijkeedii kugu haynaa asxaabay inta aan ku jirno wixii warar ay soo kordhana waanu idin la socodsiin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijyadeennii koowaad iyo kii labaad haddaba barnaamijka saddexaad ee caawa waxaanu ku soo gudbinaynaa warar xiise leh oo dhammaantood ku saabsan dagaalada soconaya haddaba waxaynu ku bilaabaynaa warka dhaafay caawa war weyn xog muhiima oo la keenay nimanka la leeyahay Shiinaha iyo Ruushka iyo nima sahlan ma telefishinka Al Jazeera ayaa meeluu laftirkiisu ka soo helay lama yaqaanee wuxuu caawa soo bandhigay videogaas wuxuu yiri satellite-yada lagu qaaday Mareykanka wuxuu yiri Al Jazeera waxay leedahay warbaahinta Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka waxay noo soo gudbinayeen satellite-yadooda Iran waxay ka qaadeen isla maalinkii wadaadka la dilayba waxay bilaabeen sawirkan waa meeshii wadaadka lagu dilay waa wadaadka gurigiisii waa saana loo galay haye okay wadaadka saasa loo galay wixii gantaal ahaa oo Iran Israa'iil ay u gudbisay oo jugta looga saarayay maalmihii la soo dhaafay wax satellite reer galbeeda oo sawirka keenayba ma jirin dadku waxay isweydiinayeen war gantaalaha Iran xagee ku dhacayaan maxaa loo qariyay niman Chinese la yiraahdo waxaan loo ogaadii hanqarsadaan deerabaan annaga keeneen waxa la soo siicaaw waa yaabaysan videogaan idin hayo Jazeera ka duubay aan idin soo daynaya waa meel lagu kala guuray isleedii waliba ma taqaan sawiradu waa isku soo xigaan qayb kamida waa magaaladii maalin dhaweyto gantaaluhu ay ku wada habsadeen Shimeys la dhahay wixii ka dhacaya la keenay haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera warbixinta wuxuu ka qoray wuxuu leeyahay maxay qariyeen saddex gacmeedyada reer galbeedka haddaba tafaasiil cusub aan helnay leedahay Jazeera oo ku saabsan garaacidii Iran weyneyd ay garaacday Israa'iil wixii Israa'iil lagu dhuftay warkoodii aan haynaa shirkadaha satellite-ka ama dayax gacmeedyada ayaa waxa la sheegay Mareykanka ah in aanay soo gudbinin sawirro ku saabsan sawaariikhda Iran iyo halka ay ku habsadeen gudaha Israa'iil laakiin waxay sameeyeen markii weeraradu ay dhaceen bilowgiiba waxay soo gudbiyeen guriga Ayatullahga iyagoo sawirro ka qaaday satellite-yadooda
sheegay inay markaa ayatullah halkaa lagu dilay haddaba waxaa la sheegay hadda in lasoo helay sawirro muujinaya balaayadii ka dhacday gudaha israa'iil sida israa'iil loo garaacay iyo qaylada ka yeertay iyo cabaadka iyo sida loo baabi'iyey halkaas haddaba aljazeera waxay leedahay warbixinta waxaa ku cad video la keenay oo satellite-yada ay keeneen kaasoo muujinaya xaafadda ama deegaanka la yiraahdo Beit Shemesh oo ku yaala galbeedka magaalada Qudus in halkaasi ay dhibaato xoog leh ka dhacday laakiin waxay leedahay jazeera israa'iil waxayba ku leedahay waxaasoo meesha ka dhacay iyo qiyaamahaas 9 qof ku dhimatay 51 kalena way ku dhaawacmeen war meesha waxa ka dhacay meel qiyaamihii ka dhacay ay waxay yiraahdeen 9 dhimatay 51 way dhaawacmeen haddaba marka videogan isla fiirsanaynaa aan halkan idinku soo gudbinayaa sida arkaysaan marka videoga waa kan satellite-yada cirka laga qaaday kullay ciddi qaaday si rasmi ah looma sheegin laakiin dadka khubarada waxay leeyihiin videogan waxaa helay oo soo sawiray Chinese iyo Ruushka iyo qolaa tagtay Mareykanku way ka gaabsadeen inay waxaan khasaaraha soo gudbiyaan sabab badan aawadood waxa leeyahay khasaarahan sababaha oo maartay loo qarinayo waxay tahay niyad jab dadka yahuudda inay niyad jabaan qayladooda iyo cabaadkooda inay samaartay dadka kale aysan maqlin oo maartay nimanka Iiraaniyiintan aan loo dhiiri gelin waxa ay rideen inay wax gaarsiiyeen iyo in kale saysan ku ogaanin waxyaalahaas la isku dhaxwadaan marka video qiyaamuhu meel oo ka dhacay waa meesha waa arkaysaan way marka waxa dhacay marka waa waxaas gaala jabkeeda way qarsataa ma goor la dhihi jiray goorma ahayd qof walba waa maqlay Soomaali maamaadaas waa la yaabi jiray gaala jabkeeda waa qarsataa laakiin hadda wixii oo saxan hadda arkaynaa jabkooda waa qarsanayaan Chinese iyo Ruushka soo bandhiga ma ahane war xaafad war qayb kamida way ku leedahay jazeera waa meel la yiraahdo Shemesh maalin hore gataalo ku dhacay bas meelihii kale Xayfa iyo hadda la soo wada alaabtoodii nimana daba socda oo iyaguna keenaya ayaga xaqariyeen laakiin technology-gan waa lagu horumaray satellite cid kasta way haysataa hadda marka hawsha halkaas ay maraysaa waaya qodobka marka halkaas ay kaga gudbaynaa wararkii kale ee soo kordhay iyana saacadihii la soo dhaafay waxa kamida telefishinka Aljazeera ayaa goordhow qoray wuxuu leeyahay wargeyska la yiraahdo wala Israa'iil ka soo baxay wuxuu sheegay 8 qof inay markaasi ku dhaawacmeen ilaa inta la og yahay Tel Aviv caawa gantaalo ku dhacay gaar ahaan meel ku dhow saldhig ku yaala wasaaradda gaashaandhigga oo halka marka uu ka muuqdo burbur xoog leh caawa loo geystay iyadoo sawaariiqdu ay halka ku dhaceen mandiqada waxa la yiraahdaa Tel Aviv oo maartay meesha Tel Aviv ay ka tirsan tahay sidoo kale waxa iyana duqeymo ay ka dhaceen bartamaha Israa'iil way iyaduna hawsha marka halkaas xaajo maraysa iyaduna meeshaas waxa ka dhacay la leeyahay arrintaas dhacday way qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa nimankii xaariskii ilaaladii kacaanka Iiraan galabta warkoodii ma arkin waxa booskoodii galay niman la yiraahdo wasaaradda gaashaandhigga afariimo gudbinay waa taan halkan idin kula wadaagay marka nimankan ilaalada kacaanka Iiraan afayeenkooda markuu baash soo istaago waa la yaqaanaa war waxay rabaan ha sheegaan uu leeyahay annaga saasaan yeelnay intaas jugta ka galinay waxa sameeyna weyna arki doontiin u baxaya marka ninkaas waaba ka helay baari soo wax u kala tuuray dhinac caadi ah haddaba marka aan idin tuso Aljazeera oo warbixin kooban ka qortay ninka hadalkiisii wararkii ugu dambeeyay ilaalada kacaanka haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan telefishinka Aljazeera uu qorayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay cadawgooda u sheegeen oo ay gaarsiiyeen in ay garaaci doonaan xarumaha dhaqaalaha ee gobolka oo dhan ay isla holcin doonaan haddii la isku dayo ayay yiraahdeen in marka xarumaha dhaqaalaha iyo halbowlaha
إيران أي قرحيان أو أي ويران يقولها لتريها عيدا كإلالة كعانك إيران أيها شركة جرايد كقيب قلي وأردتها الشيء لأنك كلا شركة جرايد أي قبتين عيدا كإلالة كعانك إيران وحيكون شيئين إني بربريين gantaalkii halista badnaa ee Mareykanka ee gobolka bariga dhexe la keenay kaasoo loogu talagalay inuu ka hortago gantaalaha iyo diyaaradaha gantaalkaas noociisa waxa la yiraahdaa ay leedahay ciidanka ilaalada kacaanku ay leeyihiin nooca la yiraahdo THAAD ayaa halka lagu burburiyay haddaba shirka jaraa'id ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay gantaalkaasi difaaca hawada ah ay qarramsadeen oo ay baabi'iyeen waxaana lagu burburiyay gantaalkan waliba saldhig ku yaala gudaha imaaraadka oo la yiraahdo qaacidatu Ruways ayaa la yiraahdaa halkaas ayaa gantaalka lagu cunay oo lagu burburiyay dhanka kale ciidamada Iiraan waxay sheegeen inay sidoo kale soo rideen saacadihii la soo dhaafay 35 diyaaradood oo drone ah kuwaasoo la sheegay in lagu soo weeraray Iiraan difaaca cirka Iiraan ayaa soo riday 35 diyaaradood kuwaasoo la sheegay in ay isticmaalayeen Mareykanka iyo Israa'iil si ay ugu dhibaateeyaan Iiraan way 35 maalmihii dagaalku socday 35 ay marayaan diyaaradaha laga soo riday oo maaragtay kuwan ah droneska kaliya ah marka hawshaasu iyaduna waxay ahayd shirkii jaraa'id ee nimankii ragga ahaa alada ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan la yiraahdaa nimanka niman sahlan baa marka hawshaasu halkaasay maraysaa haddaba ninkii macallinkii weynaa u gudbayna macallinka weyn ninkii Trump caawa qayli Trump wuxuu ku dhagan yahay Ingiriiska iyo Spain iyo Yurubtii ku dhagan yahay waa igu fiirsateen dagaalka Iiraan ila maydnaan shaqaynin may soo gurmanin oo ninka waa la galay ogaada nin weyn wadkiis waa yaqaan ninkii Trump ahaa isagoo waxna ma qari yaqaan moogtay dadka kale madaxda kale wax qarqarsada baa jugtiisa wajigiisa laga fahmaayay wariyaash waxay yiraahdeen ninkan inay jug gaartay waxa lagu gartay Ingiriiski iyo cala iyo Spain waa igu fiirsateen maxaa ku fiirsanay Iiraan waa u qarramsanaa saacada soo taadheys marka weeraraysi annaga ma nagala tashatay dhahan Yurub nin asaga isku filan oo kibirsan oo wax walba soo afjaraya Soomaalidan ahayn ha maxaa marka dhakada naga rabta waa igu fiirsateen ani Ingiriiska maba ka malaysanaynin haye Spain horta waaba ku xanaaqay maxay sameeyeen dhaqaale iyo ganacsi dambe aan la yeelanaa male waa ninkii afkooba furtay Yurubtii ku dhagay Jarmalka waa fiican yihiin waa ila shaqeeyeen laakiin Ingiriiso maxaa igu sameysay ninkii Trump ahaa inay jug gaartay halkaas ninkii kibirka badnaa adduunyo ma la isgaarin ogaada toddoba bari xataa dagaalka badhaba ninkii hadda wuxuu ku dhageeyaa Ingiriis sala ma weydiiyo asaga markuu aadayo meesha weeraray asi Netanyahu ayaa wax isku shubtay ninkii waa la weeraray Yurub muu la tashaday yuu wax weydiiyey nin kibirsan u ahaa saacada kooban ku soo afjaraya nimankan waa haddana wuxuu leeyahay maxaa iigu fiirsateen dagaalka inta jugta laga gelin xagee jirteen waxyaab loo haddaba waa idin tusaya telefishinka Al Jazeera isagu hawsha noo qaabilsan Al Jazeera waxay leedahay Trump wuxuu yiri raalli kama ihi mowqifka Britain gaar ahaan arinta Iiraan waxaa sidoo kale ku xanaaqsanay oo xiriirka u jaraya iyaguna ganacsi Spain madaxweynaha Mareykanka hadal u jeediyay wuxuu ku sheegay inuusan ka filayn Ingiriiska inuu ku fiirsado dagaalka Iiraan wuxuuna yiri raalli kama ihi sida talaabada uu Ingiriisku qaaday waxaana uu dhanka kale xanaaq kala dul dhacay Spain wuxuu sheegay Spain iyo Ingiriisku waxay hormuud ka ahaayeen dawladaha Yurub ee nagu fiirsaday dagaalka laakiin wuxuu ammaanay Jarmalka oo uu sheegay inay yihiin dal wanaagsan waxay noo ogolaadeen inay nala shaqeeyaan diyaaradaheenu waxay isticmaalayeen saldhigyadooda iyo goobo kale oo muhiim ah
miyaysan ogeyn ingiriiska iyo yurub saaxiibadeen aanu ku lahayn gobolka bariga dhexe sida qatar, imaaraadka, sacuudiga, saldanada cumaan in markaa la weeraray miyaysan iyagu kaalmo samaynayn tabtaasu u hadlay tiri aljazeera aljazeera qoraysa ninki taraaba calaacalka afkii furt marka meesha marka waxay leeyihiin dadka khubarada ah sheekadan waxay na tusaysaa ninkan juga gaartay ilaahay maraykan jug waa gaartay ilaahay wixii u malaynayay wax ka duwanna waa soo baxay marka waxaa la yidhi hawshu halkaasay ka dhacaysaa qodobkaas isaguna halkaasay kaga gudbaynaa qodob kale oo waxaa jira isaguna muhiim ah oo ku saabsan dagaalo maqribkii ka dhacay maaragtay xuduudka lubnaan iyo israa'iil nimankii horta xisbullah barnaamijkii horan waa idinkugu sheegay iyaga duqaymaha ka sokow nimanka daris waaye mogt taangiyadii agtooda yaalaan ciidankoodii ridwaan alayidhaha ciidan kumaandoosay leeyihin inta duseen ay godad uga soo baxeen ee taangiya ku liseen barnaamijkii horaa idiin sheegay hadda maqribkii hadda war aljazeera soo dhacay wuxuu leeyahay xisbullah waxay sheegteen 2 kale oo taangi ah inay laqeen nimankan waxay yidhaahdeen annagu gintaal iyo daroon keliya uguma simayne maadaama ay nala joogaanay daris yihiin waa is-idbine waa meeshaasaan ku idbinaynaa annaga meela saarina haddaba markaanudi tusoo warka cusub ee soo dhacay telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay xisbullah waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay 2 taangi oo israa'iiliyiintu ay leeyihiin deegaanka la yidhaahdo kafar kala oo ku yaala xuduudka lubnaan iyo israa'iil haddaba 2 taangi noocooda waxaa lagu sheegay inay ahaayeen merkava waxaana lagu dhuftay gantaalaha garabka laga gano casriga ah ee ay ku hubaysan yihiin ciidamada xisbullah dagaalkan wuxuu ka dhacay koonfurta lubnaan waxay sheegtay xisbullah 2 taangiba in ay hubaan in ay gantaaluhu ku dhaceen cid kale lama weydiinayeen taangiyadaas waa ku daayeen marka maalinteedii hore miday cuneen 2 hadday cuneen 3 la maraa maanta kaliya marka sheekadu marka tartiib ay usoo kululaaneen kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo waa habeennimo talaadaha arbaca ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu ku jirnaa haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu aalaaba kusoo qaadanaa maalmahan siduu dagaalka u bilowday warar soo dhacaya ayaa jira intaa barnaamijka ku jirno iyo warar kale kooban oo muhiim ah haddaba wararka cusub ee soo dhacay waxaa ugu horeeya madaxweynaha faransiiska macron ayaa sheegay goor dhaweyd inuu amar ku bixiyey markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee faransiisku leeyahay ee la yidhaahdo Charles de Gaulle in uu tagayo bariga dhexe si uu u difaaco wuxuu ku tilmaamay saaxiibadooda bariga dhexe dhanka kale ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay markaasi 4,000 oo bambooyin ay heleen oo cusub oo loo keenay markaa waxay sheegeen inay weeraro cusub ku geli doonaan mas-uul iiraani ah ayaa isaguna wuxuu sheegay in la dilay 4 qof sidoo kalena 2 qof in la dilay 4 kalena lagu dhaawacay weeraro ka dhacay gobolka la yiraahdo Qazwin haddaba wararka kale ee cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah goor dhaweyd caawa in qarax weyn laga maqday magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta mas-uuliyiinta Imaaraadka oo hadlay waxay sheegeen in qaraxyada qaarkood ay yihiin kuwo lagu difaacayo hawada oo gantaalaha difaaca hawada laga ridayo dhanka kale waxaa la sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan inuu yiri dagaalkan waa in la joojiyaa wuxuuna codsanayaa Turkigu inuu markaa dhinacyadu ay joojiyaan dagaalka oo markaa wada hadaladii dib loo bilaabo dhanka kale warar cusub oo soo kordhay iyana waxay sheegayaan Turkiga in uu ka hadlay duqaynta Iran lagu sameeyay iyo dawladaha khaliijkaba inuu isku si uga xun yahay oo markaa
uu u arko inay tahay arrin qalad ah oo dhinacyada dhan ay ku kacayaan. wakaaladda Faris ee Iiraan iyaduna waxay sheegtay in wadahadaladii wararka sheegaya in la beegsaday goob ay ku shirayeen wadaaddo doonayay inay doortaan aayatullaahiga cusub sida Israa'iil ay sheegtay in warkaas uu yahay war been ah oo aanay jirin wadaadadii dooran lahaa aayatullaahiga cusub in Israa'iil ay weerareen iyo Mareykan. wararkaas iyaguna waxay aayeen warar goosgoos oo muhiim ah oo soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay. لايكري أو شركري برنامجك كحرنا هذا برنامج إذا حقائق كوساليسن إنه مر والبيد إلا وذاقنا معلوماتك يورك سوق الدنيا إنه هلك أي مادين أنت أن مركل كل ما إنه أصحابي لايكري برنامجك هذا عصبتها سبسكرايب أكيد لو بيوتيوب كفيسبوك ولا فولو قري